oo noqday cudur si weyn u saameeyay isla markaana ay adduunku si weyn uga qaylinayaan ka hortagiisa ayaa la isku dayaa in la joojiyo inuu sii fido mana jirto daawo looga hortagi karo cudurkan haddii uu kugu dhaco laakiin ka hortagga ugu wanaagsan ay dhaqaatiirtu ay jeedinayaan ayaa u badan kuwa digniino iyo dhinaca caafimaadka oo aad uga feejignaato iyo taabashada dadka iyo dhaxgalka bulshooyinka meelaha ay ku badan yihiin 11 wadan oo ay ka mid tahay Costa Rica, Croatia, Masar, Faransiiska, Iran, Talyaaniga, Japan, Mexico, Nigeria, Peru, Senegal iyo dalal kale oo aad u tiro badan ayaa toddobaadkan ka arrinsaday sidii waxbarashada lagu sii wadi lahaa. wasiirada amuraha dibadda ee 11kaasi dal ayaa xooga saaray sida lagu socodsiin lahaa waxbarashada oo aanay u joogsan. Lucia Assolini oo ah wasiirka waxbarashada Talyaaniga ayaa sheegay inaanay bedeli karin joogitaanka macallimiinta goobaha waxbarashada isla markaana aysan waxba ka bedeli karin cilaaqaadka dhinaca waxbarashada hase ahaatee xulashadu ay tahay in ay isku dayaan intii kraankooda ah in ay maamulka iyo macallimiinta waalidka iyo ardaydaba ay ka caawiyaan sidii lagu xaqiijin lahaa caafimaadkooda. sidaasi waxaa laga soo xigtay hay'adda ugu qaabilsan waxbarashada adduunka ee UNESCO. haddaba Soomaaliya oo ka mid ah dalalka cudurkaasi feejignaanta weyn ka gashay isla markaana lagu arkay dhowr qof oo ka timid wadamada caalamka isla markaana lala tacaalayo sidii xanuunkaasi looga daweyn lahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. saaka waxaan meeshan shir isugu yeernay wasiirada caafimaadka ee federal member stateska iyo wasaaradda caafimaadka. waxaan diyaarinay qorshe qaran sida looga hortagi karo lagu xakameyn karo cudurkan coronavirus. qorshuhu waxaa bilaabay wasaaradda federaalka caafimaadka oo ka shaqeynaysa 2 usbuuc oo dambe. saakay wasiirada shir shalay noo bilowday wada tashi ah iyo qorshahaas sidii loo kamili lahaa iyadoo loo wada dhan yahay maamul goboleedka dhan ay joogaan ayaan ka shaqeynaynay. qorshahaas waa qabyo qoraal u ahaa maanta la dhameystiray oo aan kala saxiixanay. waxaa lagu heshiiyay in cudurkan hal meel looga soo wada jeesto Soomaali meel allaale meeshay joogto sidii wix allaale wixii yimaado oo looga hortagi lahaa cudurka iyo hadiiba ay noqoto wixii daawooyin ah si degdeg oo dhow loogu wada shaqeyn lahaa la isu gaarsiin lahaa. qorshahaas waa mid kamilan oo federal stateska ay soo saareen federal member stateska iyo dawladda ay soo wada saareen. wuxuu ku salaysan yahay cudurkan sidii looga hortagi lahaa iyo mustaqbalka sidii loogu wada faa'iideysan lahaa wax allaale wixii hadda maanta istiraatiijiyo la sameeyay iyadoo loo wada dhan yahay. waxaan rajaynaynaa ilaa iyo axad sabtida inay nala joogaan oo ma aragtay waxyaalihii kaleeto oo qorshe noo yaalay oo caafimaadka guud ahaan inaan ka faa'iideysano waqtigan aan wada joogno shir guul ku soo dhamaado aha. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa cudurkan inuu naga yasiro. labada qof ee lagu sheegayna ilaa iyo hadda waa caafimaad qabaan. ilaahayna waxaan ugu barinay inuu yacni jirkooda ka saaray iyagoo aanan dhib iyo xanuun kala kulmin. waxaan mar labaad ku adkeynaya dadkeena Soomaalida ah in lagu taxadaro in la yareeyo socodka in guryaha la joogo in lagu dadaalo wacyigelinta la dhageysto wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan ururka taqaatiirta Soomaaliyeed guidelines ay sameynayso oo sidii loo xakameyn karo shirarka aan la tagin safarada la joojiyo ardada iskuulada iyo shaqooyinka iyo goobihii la firaaqeeyo si cudurkan uusan u faafin. marka alxamdulillah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo yasiro Soomaali hadaan intii ummado islaam iyo guud ahaan caalamka oo dhan. ummadda Soomaali meel kasta ay joogaan waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan rabaa marka inaan ka hadlo cudurkan adduunka ku faafay ee loo yaqaan coronavirus oo saameeyay dalal badan iyo dad badan. waxaan ognahay community-da Soomaaliyeed ama jaaliyadaha Soomaaliyeed dibadaha ku nool qaarkood inuu saameeyay qaar kamid ahna ay dhinteen ku dhinteen cudurkan qaar kamid ahna isbitaalada u yaalaan. kuwa dhintay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisa jannadiisa eheladoodiina samir iyo iimaan ka siiyo. kuwa xanuunsan oo isbitaalada ku jirana waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu si degdeg ah uga kiciyo. waxaan ugu maqaala ah ra'iisul wasaarihii hore Mudane Nuur Cadde inuu hadda u xanuunsan yahay isbitaalna u yaalo cudurkan. Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa ma uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo.
kuwa kale oo Soomaaliya iyaguna xanuunsanna inuu Ilaahay ka kiciyo si dhaqsi ah uga kiciyo cudurkan waxaa la xaqiijiyay inuu Soomaaliya soo gaaray 3 qofna uu ku dhacay waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa 3 qof inuu Ilaahay si degdeg uga kiciyo waxaan aaminsanahay oo aan rabnaa inaan soo dardaaranno ama isfarno ka daba tagiisa waxa ka wanaagsan ka hortagiisa waxa ugu horeeya dadku inay nadaafadda ilaaliyaan oo gacmaha ay dhaqdaan mar walbaba arinta labaad oo looga hortagi karo cudurkan wuxuu yahay in la kala durugsan yahay marka la wada joogo uu jiro space ama distance uu jiro si looga hortago in la isku daarto cudurkan faafa waxyaabaha keena waxaa ka mid ah marka la isu dhow yahay dadka neeftooda inay isgaarto in la isku qufaco ama la isku hintiso marka taasaa loo baahan yahay dadku inay kala durugsan yihiin oo space jiro tan saddexaad oo muhiimka waxay tahay haddii qofku uu kari karo inuu gurigiisa joogo uusan ka soo bixin hooygiisu ka soo bixin waxyaabaha ugu badan oo la isqaadsiiyo waxa way baabuurta la isla soo fuulo iyo meelaha mujtamacu isugu yimaado waxaan kale ka dardaarmayaa dadku inaysan isugu imaan meelaha lagu kulmo ama meelaha bulshada isugu timaado maxaa yeelay meelaha ugu badan oo dadku ay ku kala qaadaan waa isu imaanshaha iyo soo dhawaanshaha waxaan ugu baaqayaa ummadeenna meel kasta ay joogaan inaan cududeenna isu geenno awoodeenna isu geenno aan u wada jirno aan u midowno sidii aan uga hortagi lahayn cudurkan faafitaankiisa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudahaba waxaan ugu baaqayaa inay raacaan ama u hoggaansamaan awaamiirta caafimaad iyo badqabkooda oo ah inay joogaan guryahooda ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan meel kasta ku faafay adduunka inuu Ilaahay ummadeena ka badbaadiyo muwaadiniinta sida weyn noogala socda warbaahinta qaranka gaar ahaan telefishinka waxaan uga faa'iideynaynaa sida xanuunkan uu ku bilaabmay iyo siyaabaha looga hortagi karo marka ay timaado in cudurkaasi la doonayo in si weyn looga gaashaanto ka fogow dadka maadaama dadka qaba xanuunka corona ay u qufacaan waxaana muhiim ah in qof walbaahi oo qufacaya ama hindhisoonaya aad ka fogaato 1 mitir arrintan ayay hay'adaha caafimaadka adduunka ee WHO ay sheegeen in ay marka qofka uu qufacayo ama uu hindhisoonayo uu jirkiisu haddii ay ahaan lahayd sanka ama afka ay ka soo baxaan dheecaan duulduul ah kuwaas oo laga yaabo inay wadaan ama sitaan xanuunka viruska haddii aad ku dhowdahay qofkaasi waxa suurtagal ah in waxyaabahaas aad neefsato ama aad gudaha ay u galaan jirkaaga hataaban sanka iyo afka iyo indhaha maxay tahay sababta haddii aad gacmaha ku taabato meel ka mid ah jirkaaga waxa dhici kara in ay sidaan xanuunka mar walba oo aad doonayso inaad jirkaaga taabato waxa muhiim ah in gacmaha aad dhaqato gacmahaaga waxay si sahlan xanuunka ugu gudbin karaan sanka indhaha iyo afka waxayna taasi ay dhalin karaan fidista caabuqa oo gudaha u galo jirkaaga taa oo keeni karta in aad xanuunsato ama uu dhaqsaba aad bukaan u noqoto xanuunkan ilaalinta nadaafadda neefmareenka jirkaaga ayaa iyaduna qayb muhiim ah ka ah mar walbana waxa aad hubisaa in adiga iyo dadka ka agdhow sida caruurta iyo asxaabta iyo goobta aad joogto in si sax ah aad u raacdaan hanaanka saxda ah ee lagu dhaqaajiyo nadaafadda neefmareenka waxaa muhiim ah in qofka uu daboolo afka sanka mar walbana aad hindhisoonayso waxaana ku dadaashaa inaad isticmaasho ama waxaashi nadiif ah amaba aad laabto cududa gacmaha dhinaca xusulka adigoo qabanaya afkaaga iyo sanka si aanay dhibicda viruska u gaarin neeftiisu qofka kale ee ka agdhow dibna ha u isticmaalin maradii ama xaanshidii tiishka ahayd oo aad horey u isticmaashay tani waxay adiga iyo dadka kale ee kuwa ag hareeraysan ama ka agdhow ay idinka caawinaysaa in uusan xanuunku faafin oo aan la qaadsiin dadka kale sidoo kale haddii aad dareento in naqaska uu kugu dhago ama aad qufacayso xilli hore fadlan la xiriir dhaqatarka kugu dhow ama garaaca lambarka gaarka ah ee deegaanka maxalliga ah oo ay wasaaradda caafimaadku ku siisay ama kala socodsiisay baraha bulshada iyo warbaahinta si xaaladaada loo ogaado coronavirus waxaana uu ku sii baahayaa dalalka adduunka oo dhan oo lagu qiyaaso inay tiradoodu ay dhan tahay 195 wadan hase ahaatee tirada uu haatan digniin iyo
caabuqaba uu gaaray muwaadiniintooda oo ay la ildaran yihiin ayaa lagu qiyaasay inay kor u dhaafayaan 150 dal. guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeena qaybta coronavirus ee socdaalka adduunka. tani kulanti dambe, nabadgelyo. tallaabooyinka ay qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan COVID-19 waxaa nala gudboon marka oo nalaga rabaa inaan u diyaar garowno sidii cudurkan uusan ugu faafi lahayn dalkeena, maadaama wadamo inaga horeeya dhanka caafimaadka ama xagga caafimaadka ay maareen la yihiin kalana kulmeen caqabado aad iyo aad u badan. dowladda Soomaaliya waxa ay diyaarisay goob lagu karantiilo dadka laga shakiyo ama qaba cudurka coronavirus. meelaha dadka lagu karantiilaayo waxaa loogu talagalay in dadka lagu haayo aan bulshada lagu deynin ilaa laga hubinayo, laga qaadayo baaritaan, la xaqiijinayo caafimaadkooda in cudurkii uu ku jiro jirkooda, kadibna haddii ay caafimaad qabaan lagu daayo bulshadii oo xaafadahoodii iyo reerahoodii ay u tagaan. dowladda Soomaaliya waxa ay isbitaalka Martiini ka dhigtay isbitaalka kaliya ee cudurka coronavirus lagula tacaalo. sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal Martiini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada. waxaa ku socota shaqo, qalabayn iyo maalgelin si uu ula tacaali kara isbitaalkaas dhibaatooyinka ka iman kara cudurkaas. dowladda Soomaaliya waxa ay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee ka baxa dalka ama soo gala. dowladda federaalka Soomaaliya si ay uga hortagto una xakamaysto cudurkan faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee wadanka yimaada ama ka baxa. dowladda Soomaaliya waxay $5 milyan u qoondeysay la tacaalida COVID-19. waxay xukuumaddu maanta meel gaar ah dhigtay $5 milyan oo ah lacagtii ugu horeysay oo u qoondeyno oo lagula tacaali doono cudurkan. waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ayna xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraad ah dowladda Soomaaliya. dowladda Soomaaliya waxa ay wada hadallo kula jirtaa hay'adaha dhaqaalaha adduunka si ay uga hesho dhaqaale lagu kabo midka ay dowladda kula tacaalayso COVID-19. sidoo kale waxaan wada hadallo kula jirnaa hay'adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaadii looga hortagi lahaa cudurkan dalka Soomaaliyeed oo dhan. waxaa kaloon sidoo kale la fariisanay oo aan talooyin isweydaarsanay ganacsatada Soomaaliyeed sidii iyadana aanu xaqiijin lahayn saameynta cudurkani uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan uga hortagi lahayn. dowladda waxay samaysay fariimo wacyigelineed oo ka baxaya telefishinka qaranka. dowladda Soomaaliya waxay bulshada Soomaaliyeed ugu baaqday in la joojiyo goobaha la isugu yimaado. sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn, xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojino. waagaag daawadeel waxaan filayaa in aad iyo aad ula dhacdeen barnaamijka socdaalka oo inoo soo saaray toddobaadkan al-ustaad maxamed nuur macalin Johannes. anoo Yacquub halkan kala soo tabinaya dhinaca kaamirada waxaa gacan weyn iga siiyey al-ustaad Ismaan Nuur Abkey, maama Muslima Maxamuud, maama Maryan Cali Aayad. aad baan idinkaga mahadcelinayaa intii aad daawanayseen barnaamijka. waxaan soo iloobay tifaftiri barnaamijka al-ustaad Muuse. inta barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono maxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo, amaana Allah iyo kulanti dambe oo xiiso leh.